habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawidiyeeyso idaacadda kulmiye laamaha ammaanka ee maamulka Jubbaland oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen aabba gowracay gabadhiisa dhegeysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo maanta mar kale ka qabsoontay xarunta maxkamadda ICJ maamulka koonfur galbeed oo dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ku eedeeyay inaysan qoondo ka siinin mashruuca lagu dhisay qaar ka mid ah wadooyinka dalka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in Soomaaliya ay Kenya uga guuleysato dacwadda badda ee ka socota ICJ guddiga lagu murusan yahay ee doorashooyinka qaranka oo soo dhaweeyay shirka looga hadlayo muranka doorashada ee dhawaan ka qabsoomi doona Muqdisho xirmooyinka talaalka COVID-19 oo maanta qaarkood la gaarsiiyay deegaano ka tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland iyo caruur badan oo ku geeriyooday ama lagu dilay waddanka Mozambique markale habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeen salaasa arbaca ayaa soo gelaysa waana 16 bisha Maarso sanadka 2021 Cabdi Sataar Xaaji Cali ayaa caawa noo waramaya aad baad u mahadsan tahay Xuseen Cabdille Maxamed warkii oo dhan laamaha ammaanka ee dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen aabba ku gowracay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose wiilkiisa Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa inoo haya afhayeenka ciidanka booliska ee dawlad goboleedka Jubbaland Gaashaanle Jaamac Axmed Xasan waxa uu sheegay in xilligan ay markaa gacanta ku hayaan lacag been abuur ah oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada Kismaayo taasi oo uu sheegay in laga keenay gobolka Banaadir gaar ahaan dekedda macmalka ahi ee Ceel Macaan afhayeenka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in dhacdo dhawaan ka dhacday gudaha magaalada Kismaayo taasi oo ah in aabba Soomaaliyeed oo dilay gabar yar oo isaga u dhalay ay xilligan kiiskiisana gacanta ay ku hayaan waxaana uu sheegay in maalmaha soo socda aabbahaasi ay horgeyn doonaan maxkamadda si loo marsiiyo cadaaladda aabbaha Soomaaliyeed ayuu sheegay afhayeenka inuu isticmaali jiray waxyaabaha maanka dooriya droga weeye waa bahasha loo yaqaano xashiish bahashaasu meelo badan bay ka timaadaa jahooyin badan bay ka soo gashaa dagaal badan baa lagula jiraa dadaal badanna waa siinayaan laamaha amnigu waxyaabaha keena fisqiga waxyaabaha keena protocol xumada waxyaabaha keena corruptionka iyo amni xumada bay kamid yihiin bahasha marka iyadoo aan xoga badan ka hayno meelo badan oo ay ka imaan jirana iyadoo ayna soo gaaran aanu jecelahay xogaheeda iyo informationkeeda inay soo gaaraan waxaan waa gacanta ku dhignay mid cadadkeedu 14 la dhan yahay waxaa dhacday xitaa qodob hadda isaguna qodobka labaad ah oo halka noogu qoran oo aad dil dhacay waa 12 bishii saddexaad 2021 kiiska dilka oo dhacay sabab waxa uu ahaa waxa manduriska la yiraahdo wuxuu dhacay 7 saac iyo bar habeenimo ninbaa wuxuu qabay gabar daadiisu 20 jir bay ahayd waa nin dhalinyaro ah dadka mustaqbalka soo ifaya ka mid noqon lahaa xaaskiisii oo ilmo 1 sano iyo 3 bilood haysta oo guriga u joogay wuu garaacay gabadhii si falxun u dilay gabadhii way soo xarartay saldhigii bay timid dhacdadii bay soo gaarsiisay xilligaas saldhigii wuxuu ka howlgalay sidii uu u soo qaban lahaa eedeysanaha faldambiyeedka gurigiisa dhexdiisa ka sameeyay waa la soo kaxeeyay waa la keenay haddii la keenay waraysiyo badan laga qaaday waxaa la ogaaday inay labada qof oo kaliya ahayn ilmana ay jireen sida ay sheegtay hooyadiis gurigii baa la tagay ilmo hadii la waayay meelo badan buu ku meeraystay akhirka ugu dambeeyay booliisku iyagoo isticmaalaya tabaha iyo farsamooyinka siraha khaaska lagu soo saaro waxa u sahlanaatay in ay kaga hadlayaan oo xaqiiqda soo dhaadhaco oo sheego yiraahdo wiilkii ana dhalay waana dilay tan saddexaad waxa jirta lacag soo galaya wadanka la soo galinayo oo lagula dagaalamayo burburka dhaqaalaha burburka ganacsatada iyo burburka nolosha bulshada lacagahaas waxayna kaga yimaadaan sida hadda u badan dhinaca koonfurta tan hadda ugu dambeysay oo 12 bisha tan iyadana 6 saac habeenimo gacanta lagu soo dhigay iyada iyo doontii ay saareen waxay naga timid dhinaca Muqdisho lacagtaas waa lacag falsa hadalka afhayeenka booliska ee dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii aynu soo dhaafnay gudaha magaalada Kismaayo ay ku soo badanayeen waxyaabaha lidiga ku ahi ammaanka iyadoona dhacdada aabbaha Soomaaliyeed ee dilay gabadhiisa yar ay ka dhacday xaafadda Faanole ee magaalada Kismaayo
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo. aad buu u mahadsan yahay waryaheena cabdimajiid cabaas aadan dhegaystayaal ka raalli ahaada halka aan kugu sheegnay in aabbuhu uu gowracay wiilkiisa waxa uu gowracay gabadhiisa laamaha ammaanka ayaana gacanta ku dhigay. waxaa maalintii labaad galay dhegaysiga kiiska muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda caalamiga ICJ. labada qaran ee maanta hadlay ayaa soo bandhigay mowqifka Soomaaliya ee ku aadan sida ay tahay in loo xadeeyo xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. qareenka hore ayaa sheegay in Soomaaliya mowqifkeeda tahay in xadeynta lagu sareeyo laynka tooska ah ee ku astaysan xuduudda badda. xaakimka maxkamadda ayaa ka hor inta aysan dhageysiga soo xirin sheegay in Kenya ay warqad u soo qortay maxkamadda ICJ taasi oo laga doodayo, waxaana xaakimku uu sheegay in isbeddel uu ku imaan karo jadwalka dhageysiga ee maxkamadda. dhageysiga maxkamadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya wuu socdaa waxaana harsan maalmo kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go'aanka kaliya ee ah in aysan ka qayb gelin dhageysiga kiiska badda uu lid ku yahay waajibaadkeeda iyo sareynta sharciga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo shalay hadal ka jeediyay maxkamadda ayaa sheegay in kalsooni ay ku qabaan maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maxkamadda. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in Soomaaliya Kenya ay uga guuleysato dacwadda ka socota maxkamadda ICJ. mar kale waxaa inoo faahfaahinaya warkan Kismaayo ka soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in xukuumadda iyo shacabka Jubbaland ay karab taagan yihiin sidoo kale rajo ay ka qabaan in ay guuleysato dooda dalkeena ay ku soo ceshanayso badeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan xafiiska madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa lagu yiri waxaan garab taagannahay qareenada iyo xubnaha kale ee u taagan dooda dacwadda badda ee nagala dhaxaysa Kenya ee taalla xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka ayuu yiri Axmed Madoobe. dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan ayuu madaxweynuhu ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay u difaacan lahaayeen badooda iyaga oo wada jira. hadalka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo xilligan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ka socoto dacwadda badda iyadoona ay fadhiga guud ee maxkamadda ay ka maqan tahay dowladda Kenya. Cabdilmajiid Cabaas Aadan fantastic KNN Kismaayo. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ku eedeeyay in aysan qoonda ka siinin mashruuca lagu dhisayo wadooyinka. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa dhameystiray. isagoo la hadlayay BBC-da wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Sheekh Maxamed Looxoos ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in mashruuc ballaaran oo lagu dhisayo wadooyinka waaweyn ee gobolada Nugaal, Mudug, Gedo iyo Beledweyne aanan laga siin koonfur galbeed Soomaaliya qaybta ay ku leedahay. mashruucaasi oo ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa wasiirka waxa uu sheegay in dhowr jeer ay kala hadleen labada dhinac sidii koonfur galbeed Soomaaliya qaybteeda loo siin lahaa balse aysan dhicin hayeeshayna taa bedelkeeda lagu koobay deegaano dhowr ah sida uu hadalka u dhigay. arrinta oo aanu ka qabno konsenka waxa weeye mashruuc ballaaran oo midowga Yurub ay ugu deeqday Soomaaliya runtii oo dowladda federaalka ah iyo ay isla qorsheeyeen runtii shacabka koonfur galbeed iyo dowlad ahaanba ilaa hadda waxaa ugu cunsamayla mashruuc baaxadda leh maaragtay intaas oo horumara ka shaqeynaya inaan koonfur galbeed waxba ugu jirin. marka arrinta iyada waxaanu ka muujinaynaa cabasho aanu oga muujinayno midowga Yurub iyo dowladda federaalka ah oo aan leenahay shacbiga koonfur galbeed Soomaaliya waxa la siiyey oo loo qaybiyey mashaariic micno leh oo baaxadda leh anagoo soo dhaweynayna in ummadda Soomaaliyeed ay ugu deeqdo midowga Yurub haddana in koonfur galbeed shacabkeedii la qadiyo. arrinta iyada waa wax shacabkana ay nagu haystaan runtii annagana aan in badan ka hadalay hase ahaatee aanan wax dabeecaadan ka helin. wasiir Axmed Sheekh oo la weydiiyay sababta ay ugu dhagan yihiin mashruucan iyadoo ay hore u jirtay in mashruucyo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya la gashay dowladda kale laga fuliyay deegaanada qaar ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku jawaabay.
mashaariicdu way kala gedisan yihiin kuwa annaga intaa ka badan ku leh oo hirshabeellaba way ku jiraan wax badan oo meelo badan laga fuliyey baa yaa jira horta sideedaba waxa weeye markii barnaamij soomaaliya fiiri mashruucan waxa weeye mashruuca dhismaha jidadka soomaaliya waaye marka annaga soomaaliya waxaan u aragnaa koonfur galbeed inay lafdhabar u tahay marka wax soomaaliya la siiyey oo barnaamijkaas inayna ka qabi karin waxa weeye hadda wax maqan oo calool ku jira ilaahay baa og wax hadda taagan ee barnaamijkiisa dowladda soomaaliya ay saxiixday weeye waxaan ka cabanayn annaga waxa weeye ma nihin xaasid walaalaha annaga waxay heleen raalli baan ka nahay in la hormariyaan raalli ka nahay in wax la talaan raalli ka nahay laakiin inaan sheegno annaga in la qabiyey inaanan mudnayn waxa weeye horta si wadaag ah ayaa hawshaa looga wada hadla oo dowlad goboleedyada wasaaradaha ku shaqa leh ama balaninka ama waxa waaye howlaha guud ayaa inta badan qorshaynta oo soo qaban qaadisa iyo howlaha guud inta badan ku jira oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedda waxaana weeye bilowgii hore ayay ka khaldantay oo tiimkii hawshaa ku jiray naga horreeyey ay si khaldan hawshaa u qabteen waana ka hadlaynay mar walba oon shir ugu imaanaynay inay hawshaa iyada ay loo baahan yahay in la saxo oo dib loo eego mashruuca koonfur galbeed soomaaliya ee cabashada ka muujinayso ayaa lagu dhisayaa kow waddada isku xirta beledweyne iyo gaalkacyo oo gaaraya 327 kilomitir labo waddada isku xirta gaalkacyo iyo garoowe oo gaaraya 240 kilomitir saddex waddada isku xirta gaalkacyo iyo hobyo oo gaaraya 241 kilomitir iyo afar waddada isku xirta luuq ganaane iyo doolow oo gaaraya 80 kilomitir guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ayaa soo dhoweeyay shirka looga hadlayo doorashada Soomaaliya ee dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Muqdisho wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiraya war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee heer federaal ayaa waxay kaga hadleen kulanka loo madalsan yahay ee u dhaxeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir qoraalkooda ayay guddigan ku soo dhaweeyeen iyaga oo kulankaasi ku tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah dadka Soomaaliyeed oo ay dani ugu jirto qoraalka ay soo saareen guddigaas ayaa lagu yiri guddiga hirgelinta doorashada heer federaal waxa uu soo dhaweynayaa kulanka loo madalsan yahay ee dhinacyada hoggaanka golaha siyaasadda ay qorsheenayaan in degdeg ay u qabtaan una xaliyaan tabashooyinka jira si dalka ay uga bilaabato doorasho loo dhan yahay oo cadaalad u dhacda taas oo ah himilada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan sidoo kale guddigan ayaa sheegay inay ka codsanayaan hogaamiyaasha golaha siyaasadda inay ku daraan arrimaha doorashada ee go'aamada ay ka gaarayaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee 2021 qoondadaas oo ku cad heshiisyadii hore loo gaaray oo dhigaya in xubnaha baarlamaanka ay 30% ay noqdaan haween waxay qoraalkooda ku dareen guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee heer federaal in caqabadaha kala duwan ee haweenka hortaagan sida tan ka imaanaysa wax qaybsiga qabaa'ilka iyo daruufaha dhaqaale ee jira ay soo jeedinayaan in golaha wadatashiga qaran lacagta laga dhimo 50% haweenka tartamaya guddiga isagoo eegaya xaaladda waddanka uu ku sugan yahay ee dhinacyada amniga siyaasadda iyo daruufaha nololeed ay qabaan dadka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku buurinayaa hogaamiyaasha siyaasadda inay qaataan go'aamo lagu badbaadiyo dalka iyo dadka sida lagu yiri war-saxaafadeedkan guddigu wuxuu ugu baaqayaa mar kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah inay fuliyaan heshiiskii 17 September 2020 ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay guddigan dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa maanta kulamo gooni-gooniha ku qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada madaxweynayaashii hore ee dalka gudoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka socda beesha caalamka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa hooyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxayna kulankaas ay uga wada hadleen khilaafka ka taagan arrimaha doorashada dalka sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo maanta Muqdisho yimid ayaa kulan gaar ah la qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe James Iswan iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto dhammaan kulamadaas ay yeesheen mas'uuliyiintan ayay waxay uga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo wali isjiid dheer uu ka jiro aad baad u mahadsan tahay Cali Cilmi Salaada
xirmooyinka tallaalka covid 19 ayaa maanta la geeyay deegaano ka tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland. marka ugu horeysa waxaan ku hormaraynaa Puntland. wariyaheena Muscab Maxamed Yuusuf ayaa Garowe ka soo waramay. waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee Jarnaal Maxamed Abshir soo gaartay diyaarad sidee talaalka cudurka COVID-19 oo soo gaaray Soomaaliya. waxaana shixnadan talaal ay ka koobnayd 40,000 oo taan oo talaal ah kadib markii ay soo gaartay garoonka diyaaradaha. wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jamac Farax Xasan ayaa tilmaamay muhiimadda uu talaalkan leeyahay. waxa uuna sheegay sidoo kale in la siin doono talaalkan shaqaalaha safka hore iyo waliba ardayda ciidamada qaybahooda kala duwan. faraxsannahay inaanu maanta halkan kula wareegno talaalkii COVID-19ka loogu talagalay Soomaaliya gaar ahaan Puntland shixnadiisii ugu horeysay inay maanta halkan ugu soo gaadho. shixnadaas oo ah qaybtii ugu horeysay ee loogu deeqay Soomaaliya isla markaana aanu ka wada shaqaynaynay hay'adaha UN-ka halka nala jooga maanta UNICEF iyo WHO. shixnadani waxay ka kooban tahay 40,000 oo dose oo talaal oo loogu talagalay dad cayiman oo gaara. waxaa ka mid ah dadkaas dadka loo yaqaan shaqaalaha safka hore oo ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, ay ka mid yihiin booliiska, ay ka mid yihiin askarta asluubta, macallimiinta ama macallimiinta quraanka ha noqdeen iyo madrasooyinka ama macallimiinta iskuulada ha noqdeen, kastamada iyo immigrationka. waxaanu insha Allah hadda oo aanu haysano talaalkii waxaanu geyn doonaa meesha loogu talagalay oo ah xarunta dhexe qaboojiyaha xarunta dhexe si loogu kaydiyo. isla markaana waxaanu bilaabi doonaa in aanu plan gareyno ama aanu samayno qorshihii talaalkani uu ku gaari lahaa dadkii loogu talagalay. waxaanu rabnaa inaanu hubinno talaalka la inoo keenay inuu gaadho keliya dadkii loogu talagalay. sababta loo yiri dadkaasaa loogu horraysiinayaa macnaa ku jira waa dadka khatarta ugu badani ay soo gaadho contactiga ugu badanna la leh dadweynaha. ku mashquulsanaan doonaa sida aanu u plan garayn lahayd siday taasi u dhacay lahayd insha Allah. wixii ka dambeeyana waxaanu gelaynaa haddii lahaydmo sidii dadka loo gaarsiin lahaa talaalka. Muscab Maxamed Yuusuf, Radio Kulmiye, Garowe. sidoo kale talaalkaas ayaa si lamid ah waxaa la geeyay deegaano ka tirsan Somaliland sida uu ku soo waramayo wariyaheena Ilyas Cabdi Cali. wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa maanta hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO iyo UNICEF SEB iyo Gavi kala wareegtay talaalka cudurka COVID-19 ee Covax oo ka kooban 65,000 oo xabo. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Somaliland gaar ahaan wasiirka caafimaadka, wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, madaxda qaramada midoobay ee Somaliland ayaa bulshada Somaliland ku booriyay markii uu talaalka COVID-19 kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa inay qaataan talaalka cudurkaasi maadaama lagaga hortagi karo talaal uu kaliya cudurkan oo deegaanada Somaliland hadda ku sii faafaya. agaasimaha guud Maxamed Cabdi Xargeeyo oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in bulshada looga baahan yahay inay istalaalaan. talaalkaasi oo maanta ina soo gaaray waa talaalkii ay sugaysay Jamhuuriyadda Somaliland. talaalkaas oo ka yimi Nairobi. waxa uu talaalkaasi si toos ah uga yimid magaalada Nairobi waana qaybtii ay sugaysay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo si toos ah uga yimid magaalada Nairobi. waxaan doonayaa inaan wax yar ka iftimiyo talaalkani waxa uu yahay. talaalkani waa aalad lagaga hortagayo xanuunkan coronavirus-ka. xanuunkan coronavirus-ku waxa uu leeyahay ka hortagga waxa ka mid ah talaalka. marka dadweynaha waxaan kula dardaarmaynaa wasaaraddu waxay diyaarisay qorshe dhammaystiran oo lagu qaadanayo talaalkan. qorshaha dhammayska tiran waxaanu la wadaagi doonaa dadka, waxaanu tababari doonaa shaqaalaha, kadibna waxa la bilaabi doonaa sidii loo qaadan lahaa talaalkan. waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha marba kategoriga ama cidda loo assign gareeyo ama loo garto inay qaato talaalkaas inay si fiican oo dhammaystiran oo wax ku ool u qaataan. talaalku sidiisaba horena waynu isticmaali jirnay, dibna waa loo isticmaali doonaa. talaalku waa wax waxtar u leh qofka oo uu lagaga hortaga xanuunada qaarkood oo aan wax dhibaato ah lahayn. marka waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha inay si dhow ay u qaataan talaalka. waa markii ugu horeysay talaalka Covax ee loogu talagalay in lagaga hortago cudurka safmarka ee COVID-19 la keenay deegaanada Somaliland iyadoo maalmaha soo socda la filayo in cudurkaasi talaalkiisu ka bilaabo
magaalooyinka waaweyn ee somalilan. cudurka covid-19 ayaa deegaanada somalilan tan iyo sanadkii hore waxaa la sheegay inuu dilay sida ay diiwaangelisay wasaaradda caafimaadka somalilan 83 qof, halka uu asiibay dad gaadhaya 28,000. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. halkani dhegeystayaal waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u diyaar garooba qodobkii dibadda. warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso. caruur da-doodu ay ka yar tahay 11 jir ayaa qoorta laga jaray gobolka Cabo Delgado oo ku yaala waqooyiga dalka Mozambique, sida ay sheegtay hay'adda u dooda xuquuqda caruurta ee Save the Children. hay-addan oo la hadashay qoysas barakacayaal oo qaar caruurtooda ka mid yihiin kuwa la dilay ayaa arrinkan ku tilmaamay xasuuq daran. hooyooyinka caruurta dhalay ayaa sheegay inay arkeen muuqaalo ay ku jiraan wiilashooda yaryar ee la dilay. gobolka ay arrimahani ka dhaceen ayaa tan iyo 2017 waxa uu kacdoon u ahaa koox ka shaqeysa koox kalluumaysata oo lala xiriirinayo ururka Daacish bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii ugu yaraan 52 qof hal mar lagu dilay tuulo ku taala gobolka Cabo Delgado ee Mozambique. guud ahaan dhegeystayaal warkii